madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray dalka Turkiga ayaa waxaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah uu la kulmo dhigiisa dalka Turkiga. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan ayaa wadahadaladooda xoogga ku saari doona adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood, amniga, ganacsiga iyo iskaashiga miro dhalka ah ee ay labada dal wadaagaan. madaxweynaha jamhuuriyadda inta uu ku guda jiro booqashada dalka Turkiga waxa uu la kulmi doonaa bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed sida jaaliyadda iyo ganacsatada si uu ugu xog wareysto xaaladahooda guud iyo horumarada ay sameeyeen. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya waxa uu booqan doonaa dugsiga tababarada Commandos-ka ee Sparta halkaas oo ay tababar ku qaataan qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.